warbixintan muhiimka ah miisaaniyadda sideedaba hadda waa saadaal waaye ama odoros sida warbixinta ku qoranna miisaaniyadda guud boqolkiiba 94 ama 95 waa lacagaha loogu talagalay adeega maamulka waa runtii wax oo ku cad gudiduna ay cadeeyeen horumarintana waa inta la sheegay oo 5.2 ah oo runtii dalka intiisa badan ay xitaa waxyaabaha hadda gudigu ay cadeeyeen inaanay xitaa amniga oo aan ognahay maanta baahida loo qabo xitaa inay qoondadeedu ay ka badan tahay sida aad ku aragtaan jadwalka arrimaha maamulka iyo xafiisyada wax lagu bixinayo waxaan rabaa mudane gudoomiye laba qodob inaan taabto aniga mid waa midii ay ka hadleen gudiga qaybta ah tala soo jeedintooda oo ku saabsan number 2 in sanadkii 2017 la isticmaalay lacag aan budgeted ahayn oo runtii tiro meesha kuma qorna xilwaan xidig 34 milyan wax uu sheegay aniga ma ogi inay meel kale uu ka helay laakiin haddii budgetku uu kordhana de nidaama jiro oo sharcigu cadeynayo oo aan supplementary budget la sameeyo hadduu hoos u dhacana sidoo kale laakiin iyadoon midkoodna aan la ogeyn in kharash dakhli aan hore u ahayn miisaaniyadisnayn in la isticmaalo runtii waa arrin u baahan in guddiga hawshan u xil saaran ay si detail ah oo cad ay u soo cadeeyaan arrinkaasi waa arrin runtii aan sahlanayn lacag aan miisaaniyad ku jirin in la expenditure gareeyo waa hawl sahlan maaha waxaan ka rabnaa saaxiibada soo diyaariyay number 2 tala soo jeedintooda inay cadeeyaan figurka lacagtaas iyo meesha ay ka timid iyo waxa lagu kharash gareeyay mudane gudoomiye qodobka labaad miisaaniyaddu wuxuu ka kooban tahay dakhli iyo kharash sideeda haddaan dakhliga laga hadlin oo aan dakhli la helin kharash ma jiraayo wax badan baa laga hadlay canshuuraha iyo adeegyada ay bixiso dawladda federaalka ama laga helo dakhliga iyo deymaha iyo lacagaha ee loogu deeqo waxay ku tusinaysaa inaanay jirin runtii canshuur ururin oo sidii la rabay ah maxaa yeelay dalku waa la ogyahay xaddiga canshuurta ay ka midaysan tahay dhibaatada maanta dalka haystay ka mid tahay howlaha kale oo dhan waxaa la leeyahay waa laga wada hadlayaa laakiin xagga canshuuraha iyo dakhliga waa lagu kala duwan yahay separate baa lagu kala yahay waa runtii wax mucjizo ah waay in badan horaan u sheegnay waxa weeyaan gobolada haysto waxyaabihii waa inay de contribution-kooda sida ciidamada iyo waxba ay ugu biiriyaan waa in de canshuuraadkooda iyo iyagana dakhliga qaybtooda looga cadeeyo ama canshuur midaysan looga qaado tariifada iyo canshuuraha way cadeeyeen guddiga April waa muhiim waay maxaa dhowr jeer baa dhacday inaan canshuuro aan soo marin in maarta la yiri waa la qaaday marka in la keeno golaha talada guddiga qodobka muhiimka ah waxa waaye mudane gudoomiye guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka mudanayaashan golaha shacabka ama ka kooban labada gole oo runtii xubnaha uga mid ah golaha shacabka aanu qorshe howleed tafatiran aan u soo gudbinay guddoonka iyo sida activity kasta ama shaqo kasta loogu qabanayo ama hawsha looga baahan yahay dastuurkan oo runtii noqday mashruuc aan dhammaanaynin muddo dheerna lagu jiray mudanayaasha sharafta leh waxaan maanta uga cudur daaraynaa inaan warbixintii 3 biloodlaha ahayd runtii aan diyaarinay golahana aan la wadaagayno guddoonkuna aan hore ugu soo gudbinay kulley ajandayaasha soo socdana lagu dari doono iyo macal qorshahaas oo weli u baahan qaabka loogu adeegayo dawladda Soomaaliyeed ama xukuumadda waxaan uga mahad celinaynaa inay tahay xilligii sanadkan la yiri ha loo budget gareeyo lacag ka imaanaysa gacanta ummadda Soomaaliyeed si dastuurkeena uu u noqdo dastuur Soomaali leedahay runtii waa arrin lagu amaano xukuumadda laakiin waxay u baahan tahay sida hadda talada guddiga iyo la fariisadkii aan la fariisanay ay ku cadeeyeen in wasaaradda arrimaha dastuurka waxay
وأكتين هولها ويكل عديهم قضبة الدستور كذا أخرسان بقول صدني صدق صدني أفر تدواتني كو وعدين ساعدة دبويرس الدستور ك mandate كأوله مركا شقة اللقبانية وزارة أنا كما قاعدة إنه أوده هذه وحي لهاي لكن هولها اللقبانية وحا إسكاله لبدا جودي joint committee قلها شعب ككوب قلها برلمان ككوبان وحا ربنا أرنكاس وولي بأنكو أتكينا جودي ميزانية دي مالية ده إن العكتاس اللي هوس كانوا برلمان كفدرال كصومالي محايا البرلمان كوا institution جروا جودي وليه هاي ومدحيجه إن العكتاس أي نقطة ما دام العق joint أي تاي معمول كذا ده برلمان حلمان العق ما معموله لكن عدي mandate وهلا معمول النقطة أما حكاياش هالنقطة لكن إن نقطة العق لهوس كانوا برلمان فدرال كصومالي برلمان فدرال كصومالي لو بدي سأقل كلها شعب كأما أقل كسره وحبنا كلا سوء عمين لكن أن لهوس جينين وزارة أرمى الدستور ك وأنا سببين هنا ومحايل واحد لو بهاي mandate ك أنا هيسنه إن دي الله يرى هذا الدستور كان أو رنت نبكي سؤال وبدأي هاي إن لوضع كون يسديدي طبعا كسيدا قعد ورشهولات كجودجة ومال في عن إيمان دونه مدر جودومية أرنك برلمان كي سجالات iyo xuquuqdii hore aan uga hadalay sida ogtiin miisaaniyada ku celinta waxa la yiraahdaa hal bil waxa lagu darayaa 2017 kulay waa iska gabagabo haddana waa la sheegay 5 bilood 6 bilood bay ahayd iyo xuquuqaad badan oo civil servant-ka ka maqan ama shaqaalaha rayidka ah iyo xitaa adeegyo kale marka waxaan leenahay wasaaradda ha soo cadaysa kalimaana gudiga waxaan u sheegaynaa in miisaaniyada marka dib ay isugu noqdaan in la cadeeyo lacagtaasi dheydka iyo goorta la bixinayo iyo meesha ay laga bixinayo iyo in ay aan la dhihin wax iska tala soo jeedin aan noqonin ay noqoto hawl la isla soo gartay gudiga iyo wasaaradda aad baad u mahadsantiin ma